fanaaniintan sameeyeen Ex Fiore Estate hadda markii golo la dhisay wuxuu ka kooban yahay madaxweyne baarlamaan wasiiro prime minister dad aad u fara badan waxaan filayaa inay aad ula yaaban yihiin daawadayaasha inay fanaaniinta ay samaysteen state ka go'an isteedida kale oo saad wax u maqli jirteen aad isagana u maqli doontaan dawlad goboleed la mid ah talo aniga aad baan ula yaabanahay laakiin waxa laga yaabaa inaad idinkana ila yaabi doontaan talo maxay soo wadaan Nkrumah liiskan yaa ka mid ah qolooyinkan maxay tahay bal Nkrumah soo dhawow waxa weeye inta heesta inta hadasha inta alifta inta hadasha oo warka ku hadasha inta wax masawirta inta banooniga dheesha inta waxa la isku yiraahdaa fanka iyo sportiga ayaa ka mid ah waxaana la yiraahdaa Ex Fiore Estate markaanu aragnay dhibka la soo gudboonaanay dalkaygii ayaanu halkan waxaan ku sameynay haddaanu nahay reer qaylo quute kaleesa iyo kantumo iyo kan banooniga dheeliya mid kastaba liiskii haddaan idin akhriyo Ex Fiore Estate waxay ka koobmaan madaxweynaha oo ah fanaanka qaaliga ah ee isku soo celin doona dalka waa Kombe Abdiraxmaan Kombe ku xigiisa oo ah jilaaga qaaliga ah ee halkan uga yimid dalkiisa inuu caawo halkan uu ka qayb qaato waa Sharif Jack الله أكبر سوماليان ولاتو maanta waxaan ku faraxsanahay dadweynaha oo halka kan iskugu yimid oo aad iyo aad oo maanta oo danahooda u soo beerdareeyay state-kan halka kan lagu dhisaayo Ex Fiore Estate oo lagu dhawaaqay oo aad maqlayseen oo war degdeg ah hadda soo gaara oo yahay waxaan u yeerayaa prime minister-ka Ex Fiore Estate waa kuma waa Umar Musa Ade Umar Bonge oo ah laf dhabarka kooxda qarandoon ee magaalada Toronto Umar oo aan ku weydiiyay su'aal qof walba marka la doorto waxba lagu doortaa waxa uu sheegaa inuu dalka wax u qabanayo dalka burbur oo dhisaayo adiga qolooyinka wax sheegi jiray waad ka duwantahay waxaad ka socotaa Ex Fiore Estate oo ah state dhawaan ku soo beeray state-dii hore u jiray marka adinka maadaama aad cusub tihiin wadanka maxaad u qabanaysaa waa hawlahayn horta runtii su'aashaadu aad bay u fiican tahay laakiin su'aasha intii aad weydiisay waxa ka horeeya horta qofka marka la dooranayo waa inuu yahay qof u qalma aniga waa ii jeeda bilcad iyo sharafta iyo saan u ah oo kiyaalahaygu xataa waa model ma aha kuwii hore ee bariministarada ay qaadan jireen kan hadda aan wato waxaan ka soo bixiyey 2500 ayaan ka soo bixiyey Soomaaliya waxaan u doonaynaa in koona gardaradiisa asqaato koona gartiisa asqaato si kale kuma hagaanay beenbeen yaa isku sheegin mugdi yaa isku wadin الو ها مدحوين عبد الرحمن او كومبو وحييليسا انتي ودين ما هو arrintii waa wanda yaal madaxweyne waana ku mahadsantahay sida sharafta laad ii soo wacday si aad loo dedejiyo haddaan ka imid ilkii haddaan ka imiday hadda ayaan ka imiday waa soo siibti ma oo waa soo siib xaraan la cunumaayo anaftikay kan kor waa soo siib macdan hoos le waxaad amarna siiso dhan waa fulinaynaa waxaan u sheegaa in dib isticmaal lagu celi karin caway imaanin ku jiifa ku soo kac haddii la waayo geed oo lagu xiro
أنا سانكو هاينا عوي مالن منوغاي منا كانوغاي منا كادالايان كليا أنا عوي مالن ألان كو دارتا كان محاوى أنا كان محاوى أنا كان والله يا بنها أنا محايل أنا كان وانعي أنا كان هرمو هوسي أنا كان محاوى أنا كان عود وضان مالن والمحاوى غف قصته أنا جزون وقاتي أنا المذوب وقاتي أنا العقارن كرنتي وضاده بابا دغيس بهذا كان سي هدلويسا اديga calanka ma la socotid miya si lagu keenay meeqa oo nafwaysi calanka si lagu keenay miyadan xasuusin walaalo yaaqay kuwan hadda calamanka suubsadeen waa kuwo aan ba ahayn dad muwaadin maba ahaba way sababtoo ah calankan si lagu keenay iyo si loo keenay iyo si Soomaalida asku keenay waa calan qaali baba anaga kan maahne koo kala ba marna cawakan maalinkan هذا علن كان وحي كان علن كان أو كلا صوب سنة أركيسد ودون الرع وعلاشيس وشقيسته إسي قبل ما عيسى بحال رئيسي أنا إسي مئة أنا إنا وحسي ما هنا وحلا مسيو ساسا نقوله علن كان سومالي عليه علن كان سومالي هو علن كان سومالي عسيس وين عاون عزدي سيسو علي عدد خويلة عناذي وعذويستني يا وعيذي وحي اللبوسو عربي اتكلم كعيل ترتا ورعن تراعب ماسقان عاسقير ملي ننعتكيس لعن توصدي ما عولاد كدير واياهي dad baa la yaabanoo calankan hadda waa inaan dadka u geeyaa oo iraahdaa calankan bal waa calankii hore ee calanka Soomaaliya waa loo soo halgamay dad badanaa madaxiisa u dhintay dad badanaa god u galay marka bal calankan waa inaan hadda dib u cushaa maxaa yeelay aniga waxaan arki jiray mid kasta isteed gooni inuu leeyahay marka bal hadda calankan waxaa la sheegay inuu calan qiimo badan yahay bal dib u noqonaya Lero ni lero, wala ta kujera, ita koyo mesha, wasile shinova. Lero ni lero, wala ta kujera, ita koyo mesha, wasile shinova. Kakubli, kakusoto, kakubli.